xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka hay'ad oo wareysi gaar ah ku siinay qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer gudaha magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay siyaasiyiinta Soomaaliland inay xiran yihiin niqaab balse aanay u shaqeynin bulshada iyo sidoo kale dadkii rayidka ahaa. waxaan u arkayaa jaaniska ay heshay xukuumadda kulmiye wawgeedeenoo maxamed kaahin baaba yidhi wasiirka arrimaha gudaha waxaanu tabaynaa inaan mucaarad jirin meelaha qaarkood runtii waan uga markhaati furayaa waxaad moodaa siyaasiyiintii mucaaridka ahayd inay niqaab xidhaan niqaab taasaan uga jeeday qofkii jaaniska lahaa ee xusbi mucaarida ku jiray ee ka hadli lahaa dhaliilihii dowladda maaha runtii inay odayaal qabiil kaga hadlaan in gobolaysi kaga hadlaan in degmooyin kaga hadlaan waa qayb baynu ka nahay baan leeyahay markaa xusbiyadeenna mucaaridkii inaynu gudan weyno waajibaadkeenni mucaaridnimo marka waxa weeyaan siyaasiyiintan wuxuu hagaagayaa ma jiraan inta nin waliba uu leeyahay dad baan cod ka doonayaa sheegi maayo qaladka oo haddaanad meeshii waxbaba ugu iman maxaad hadhow sixi taananu ka hadlaya waa taa aan leeyahay waa in loo bareero waa in mucaaradada ninkii mucaaridi uu mucaaradadiisa caddaysto waa in lagu dhaliilo dowladdu qaladaadkay leedahay oo toosin bay markaa noqonaysaa laakiin marka reeraandabada geliyaa wax soo afuufo dee maaha mucaaradad maaha waxaan dilay qiimihii mucaaradnimada qiimihii xusbinimadan dilay sidaa daraaddeed waa in raggan daaha dabadiisa fadhiyaa ay iskeenaan fagaarayaasha waa leeyaanu xogaye imka adoo waxa ka mid tahay xisbiga mucaaradka horena waxaad uga mid ahayd xisbiga kulmiye oo aad muddo ka mid ahayd dhaliishan imka ku muuqatay aad leedahay siyaasiyiinta niqaab xidhay markii aad xisbiga kulmiye ahayd ama xilka ka haysay ku muuqatay dhaliishan haddii ku muuqatay saaxiib way muuqatay horena waan uga hadli jiray anigoo xukuumadda ku jira waad garanaysaa bur aynu wada joognay halkan aynu maanta fadhinaaba aynu fadhinay inaan wixii mucaaridku sheegi lahaayeen anagu sheegin waad ogeytii halkaa isku beddelkii ciidamada booliiska nin mucaaridoo soo hadal qaaday ma jirin anigoo bara saabkii iyo xukuumaddii khaladna waanu arkayay imikadana qalad baan runtii u arkay tii baa ka mid ahayd waxyaabo badan oo imika 1 iyo 2 koodhan maayo dubaad uga heli kartaa rikoodhkaaga waxa weeyaan wixii qaldan horta inaad sheegto ama muxaafid ah ama mucaarid ah oo haddii kale dembigaad la yeelanaysaa dembiga ayaad la yeelanaysaa xisaabtuna tan adduunyadu maaha tan la isku xisaabinayaa rasmiga oo aakhiro mas-uuliyiin baanu nahay wixii qaldan inaan sheegno ayaa waajiba xogaye bal waxaad nooga warbixisaa arrimihii doorashooyinka Soomaaliland wallaahi taa maanta waan igi ka hadlay labada xusbi ee mucaaridkii way tanaasileen waanaanu ugu mahadnaqaynaa labada hoggaan ee xisbiyada mucaaridka ah xukuumad tanaasishaa la arki jiray xusbiye mucaarid oo tanaasila runtii iyagay nasiib darro ku tahay kulmiye weli wuxuu taagayay berigii uu mucaaridka ahaa hoggaankiisu ayuunbuu isdifaaciyo ku jiraa inuu waxadadkayo waxaasina waxbay xumeeyaan ninka waxayaa inuu isagu wax dabciyaabay marka runtii waa nasiib darrooyinka haystaa ayay ka mid tahay dalkan haysta bay ka mid tahay marka waa kugu mahadnaqayaa haddii laga waayay tanaasul xukuumaddii inaanu anagu tanaasulno waajib bay nagu tahay iyadoo marka horeba wuxuu tanaasulaysay oo diyaar u ahayd waayo dalkani sidan ku socon maayo baarlamaan la'aan waxa weye nidaam bay kii aynu samaysanay dee inaynu dabaqnaabaa loo baahanyay runtii saa daraaddeed aad baan labada weliba waxaa leeyahay iyo ummadda reer Somalilandba oo quusba ka gaadhay inay cidba doortaan oo maxay soo kordhinayaan waxaa leeyahay quusanina rajadu way nooshahay dalkani rag buu leeyahay waynu gaadhi himiladeen iyo hankeena geesa kale xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka hay'ad ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye talada haya waxa uu ku dhaliilay inay ka gaabiyeen iyo sidoo kale inaanay u tanaasulin xisbiyada mucaaradka oo ay xisbiyadii mucaaradka ay tanaasuleen sanadkan balse ay doorashada la filayo waqtigoodii inay qabsanto in looga fadhiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu hirgeliyo
runtii waa nasiib darro annagu waanaanu sheegnay waanaanu sheegaynaa waanaanu ku qasbaynaa xukuumadda inay dhacdo doorashadii baarlamanka iyo tii degaanaduba in ay dhacaan runtii marmarsiyo noqon maayaan kuwii kuraasida fadhiyay iyagoo danahooda ku difaacanaya daaha dabadiisa kuwaasoo kalea sheegayay kuwa niqaabka gashaday siyaasiyiinta niqaabka gashan ee reeraha hoosta ka soo hurinaya ee reer hebel geli maayo iyo degaan hebel laga geli maayada kuwa hayaa maxay u jeedaan ee iyagii dayacay markii horena hadday saami qaybsi tahay hadday wax hagaajin tahay iyo hadday tahay toosinta dhabta ah ee xukuumadda cidda looga baahan yahay waa baarlamanka weeyaan iyagii baana fadhiid noqday marka kuwan degaankuna runtii waa la miduun waxaan rajaynaynaa laakiin sida imika saddexda xusbiba isku afkarteen in loo gudbo tallaabooyinkii kale ee ku xiga caqabadda ku ah doorashooyinka lana qabto doorashooyinka ilaahay qabso ونوح محمد عبدي مدعس 24 TV magaalada Burco